لنا في رسول الله أحسن أسوة. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحديث الثالث عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ودرسيني سدحات كتاب كيني تحفة المشتاق، وعن سوق قارني حديث كي سدحات كتابك. الحديث الثالث حديث كسدحات مروي وحال لقورنا عن أبي ذر صحابي قال لي رضي الله عنه. أبي ذر الله كراضي نقضيه. قال أبو ذر وحويري قال لي رسول الله إلهي رسول كيسي وحويري صلى الله عليه وسلم. رسولك إلهي يا وحويري سدة: اتق الله إلهي كعبسو حيثما كنت ميل الله لميشد جوكتب، ميل الله لميشد كسوغنتها بإلهي كعبسو. اتق الله إلهي كعبسو حيثما ميشي كنت أضحاتبا. واتبع رعسي السيئة حمانتني الحسنة وناك رعسي تمحها ويبابئنيسا أما ويتريسا. تمحو حسنة ها سيئة أيي تريسا ويبابئني. وخالق الناس ضدكنا كل دقن بخلق حسن دقن ونكسن يتبعد ونكسن. حديث كان وحلقوا يا صحابي قال لي أبو ذر الغفاري مجلس وجندب ابن جنادة أيا لي وعقد قبيلة اللي هي غفار. وأبو ذر الغفاري ساسا أنت بدن لقول نسبة يوا صحابي الجليل أيوة هاي وحكمي هاي لي من أزهد الناس تدك حق زهدك يا الدنيا نعبك يا الدنيا إن لقف هذا تدك أقول ليريه أيوة كميد هاي لي حتى وحال الشيء maalinta iyo habeenkaas uu joogo wuxuu u baahan yahay wixii ka dheeraad oo sadaqaysan jiray meel ma uusan dhiga jirin. Abu Dharr al-Ghifari wuxuu kamid ahay min awciyati al-ilmi dadka cilmiga aad iyo aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku shubayo aad iyo aad cilmi fara badan oo ku irsaaqay iyo kamid ahay xagga aqoonta diinta saxaabada nabiga dadka ugu cilmiga badan ayuu kamid ahay. nabiga عليه الصلاة والسلام wuxuu u qiray inuu ahay dadka midka macnaha ugu run sheegid badan xagga lahjada oo macnaha hadalka xaqiisa dadka ugu run sheeg badan inuu kamid yahay ayuu u qiray. xadiis Tirmidhi iyo Ibn Majah iyo Imam Ahmad ay soo saarayaan intaba ajiro nabigu yiri ma aqallat al-ghabra'u wala adallat al-khadra'u asdaqa lahjata min Abi Dharr. dhulku ما أوسن قاعدين عركنا ما أوسن هو سنين عيد كرون شيء بدن أبو ذر الغفاري مركز الصحابي سيدا سو هايو آدي آد حقه رمتنا نبي وأوبا من خاطيك عين صحابي جاس مقالة مدينة مركز رجوب جرا مركز دم مركز رسول جريد عليه الصلاة والسلام مقالة مدينة وإسحاق جوري ما اللي ربده ومقالة مدينة كبحسن ayuu degay halkaasna ayuu ku geeriyooday. wuxuu geeriyooday lida taariikhda hijriga markay aheeday 32 waa la sheegaa. saxaabigaas asiga ayaa xadiidka warinaya عن أبي ذر. marka Abi Dharr waxa laga wariyay radiyallahu anhu Abi Dharr xaqiisa Allah ka raadi noqday. qaala Abu Dharr inuu yiri ayaa laga wariyay قال لي رسول الله رسولك إلهي وحو إيري صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحا يقول لها سيدة: اتق الله إلهي كعبسو حيثما كنت ميل ألا لميشة جوكتو. حيثما كنت معناه وحا لقوضا في أي مكان وأي زمان كنت فيه بوسك جوكتو إيا الزمن كالسؤال جوكتو عدد كاليغات هاي
haddii lagula joogo, haddaad gurigaaga joogto, haddaa masjidka joogto, haddaa waddada marayso, haddaad dad la joogto, haddaad kaligaa cid la joogto, intaba si kastood ahaataba ilaahay kaga cabso, ilaahay ka cabso. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku daalacanaya wax kastood samaynayso, waa ku eegayaa xaalaadkaadoo idil, ilaahay waa kaa warqabaa, ilaahayna wax ka qarsoon ma jiraan. marka waa kelimad weyn. taqwo markii la yidhaahdana waa kalimatun jaamicatun likulli khayrina la yidhahda, waa kelimad jaamica ahoo khayr oo dhanba soo uruurisa. ilaahay ka cabso marka lagu yidhahdo macnaha diintii oo idil aa ku dhex jirta halkaas. maxaa yeelay cabsida macnaheedu waxa waaye ilaahay wuxuu ku amray inaad qaadato siduu kuu amro u qaadato, wuxuu kaa reeban inaad ka harto. markii la soo ururiyo macnaha taqwada sidaas waa. culimada islaamka markaad fiiriso tacaabiirta iyo siyaabaha ay u cabireen aaday u kala duwan yihiin, laakiin macnaha ujeedadu meel isugu wada imaanaya. culimada qaar waxay ku fasireen taqwada. taqwa maxaa la yidhaha markii la weydiiyey waxay dhaheen taqwada ilaahay waxay noqaysaa allaa yaraaka xaysu nahaaka walaa yafqidaka xaysu amaraka. waa ilaahay inuusan kugu arag meel uu kaa reebay, meel uu kaa reebay maalinna inaadan istaagin, meel uu ku amrana inaan lagaa weynin. sidaasaa taqwadii noqonaysaa dhehen. sayidina cali bni abi aalib ayaa taqwada macnaheeda la weydiiyey, isaguna wuxuu yidhi hiya alkhawfu min aljaliili waalcamalu bitanziili waalqanaacatu bilqaliili walisticdaadu liyowmi alraxiil. taqwada waxaa la yidhaha yidhi in ilaahay laga cabsado. alkhawfu min aljaliil waa in rabbi laga baqo, waalcamalu bitanziil qur-aanka ilaahay soo dejina in lagu dhaqmo oo wuxuu ku amraayo la qaato, wuxuu kaa reebaya laga har. waalqanaacatu bilqaliil wax yar haddii ilaahay ku siiyana inaad waxaas aad ku qanacdo ood ilaahay uga mahad celiso. tan afraadna waxay tahay walisticdaadu liyowmi alraxiil, maalinta adduunyada aad ka guurayso ood geeriyoonaysane inaad u diyaargarowdo. sidaas ayaa taqwo la yidhaaho. marka taqwada afartaas qodob ay ka koobanto yidhi sayid cali waa inaad ilaahay ka baqdo, waa inaad kitaabka munasalkaa ku dhaqanto, waa wixii ilaahay ku siiyey inaad ku qanacdo, inaad maalinta qiyaamo u diyaargarowdo. ittaqillaaha ilaahay ka cabsa ayuu yidhi nabigu marka xaysu maa kunta meel alaala meeshaad ku sugan tahaba. wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha, wa atbici raacsii asayi'ata xumaanta alxasanata wanaag raacsii, tamxu xasanadii aad samaysay haa sayi-ada ayay tiraysaa. haddii xumaani kaa dhacdo oo dembi aad samayso, dembigaas kaa dhacay waxaa la rabaa inaad wanaag daba dhigto, wanaag inaad daba dhigto, wax xasana ah oo wanaagsan inaad raacsiiso, sidii sadaqo inaad bixiso, salaad inaad dukato, soom inaad soonto, istikfaar iyo dembi dhaaf weydiin inaad la timaado, towba inaad la timaado, arrimahaas iyo wixii la halmaala inaad la timaado wax wanaaga. xumaanta haddii kaa dhacdo tamxuha, wanaagaas aad samaysay xumaantii uu baabi'inayahu meesha ka tirayaa, ilaahayaa kuugu dhaafayo. dembigii kaa dhacay wanaagaas ayaa ilaahay kuugu dhaafaya aad gadaashiisa la timido. ina alxasanaati yudhibna asayi'aati, waa ka ilaahay le subxaanahu watacaala xasanaadka iyo wanaagga qofku uu sameeyo waxay baabi'inayaan wixii xumaanaha ee hore uga dhacay. marka qofka muslimka waxaa la rabaa macsuum ma ahano dembiga mar walba kaa dhacaye, markay xumaani kaa dhacdaba inaad towbada iyo istikfaarta aad u cararto, xumaantii aad wanaag daba dhigto si ilaahay kuugu dhaafo. wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasanin, wa khaaliqi nnaasa dadkan la dhaqan ayuu yidhi nabigu bikhuluqin dabeecad kula dhaqan, khuluqaasoo xasanin wanaagsan. dadkane waxaa la rabaa inaad kula dhaqanto dhaqan wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan wey. dabeecad wanaagsan macnaha waxaa loola jeedaa inaad maaragtay maalan aad samayso mulaatafa, dadkii aad u naxariisato, weji furfurnaan, waxa wanaaga macruufka aad bixiso, dhibkaaga aad ummadii ka reebto, wax allaale wixii maaragtay khayr ah oo wanaaga inaad qofka ku qaabisho, wixii xumaana inaad qofka aad ka ilaaliso oo xaggaaga aysan xumaan ka soo gaarin. dadkaas marka la leeyahay dhaqan wanaagsan ha lagula dhaqmo
وخالق الناس مركي ليراد ومسلم يا قالبا مسلم يا قالك لبضبا إن الدقن وناكسن أتكو قابشوت كل دقن أيال الدنيا ولي وقارهان دتك كل حنول meelaha gaaladu ay joogto dadkaas si aad iyo aad ayaga waxa looga baahan yahay inay aad iyo aad akhlaaqdooda u hagaajiyaan xayale meeshaas waxay ku metelaan muslimiinta qofku gaalada dhexdeeda asigoo joogo wix allaala wuxuu ku dhaqmo waxay ka tarjumayaan islaamka haddii wax wanaaga ku dhaqmo marka dadkaas gaalada waxay aaminayaan islaamku dhan inuu sidan u wanaagsan yahay haddii laakiin xumaan oo ku dhaqaaqo qofkii muslimka ahaa ee gaalada ku dhex jiray hada gaalada waxay isleeyihiin islaamka la sheegay waa sidaan oo wax maaragtay wanaagsan ba ma ahan sidaas ay ka aaminayaan saadartay marka waxa la rabaa qofka muslimka ah meel walba joogo dadka uu la nool yahay ama ha ahaada muslim ama gaal ha ahaadeen inuu akhlaaq wanaagsan oo kula dhaqmo oo muujiyo dabeecadda wanaagsan sideedaba waxyaabaha jannada lagu galo waxa ugu sareeya ay ka mid tahay nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa la weydiiyay waxyaabaha jannada u gal maxaa ugu badan markaasuu nabigu taqwallaahi wa husnul khuluqi ilaahi cabsidiisa iyo dabeecad wanaagsan ayaa lagu gala janno ugu weyn oo yiri waxa jiray sheekh weynaayo lih jiray Junayd al-Baghdadi ayaa wuxuu ka hadlay dabeecadda wanaagsan oo soo koobay dabeecad wanaagsan la iska raaso lama dhihin wuxuu yiri dabeecadda wanaagsan afar shay sideedaba qofka markii laga helo adoonka meel saray gaarsiiyaan afar shay markii laga helo arba'un tarfa'u al-'abda ila a'ali darajaat afar shay markuu qofku sameeyo ama dhaqan oo ka dhigto meel saro oo gaara ilaahay agtiisa ka gaara wa in qalla 'amaluhu wa 'ilmuhu amalkiisa iyo cilmigiisa haba iska yaraadaane afartan shay maxay marka wuxuu al-hilmu wa tawaadu wa sakhaa'u wa husnul khuluq wa inuu dulqaad qofku leeyahay dulqaad iyo tawaadu inuu isbihi macna isduleeyo san dadka iskala weynaanin asakhaa inuu yahay qof gacan furan oo wax dhiiba iyo husnul khuluq dabeecad wanaagsan oo leeyahay afartaas shay qofkii laga helo waxa waaye martaba iyo maqaam weyn oo ilaahay agtiisa ka gaara xadiidkan marka culimadu waxay yiraahdaan waa xadiis aad iyo aad u weyn oo qawaacida diinta kamid ah xadiidkan marka saddex xaq ayuu kulmiyay sida hadda aad ka dareemayso saddexdaas xaq waxay tahay xaqi ilaahayna waa kulmiyay xadiidku oo xaqa ilaahay waa maxay waa inuu qofka mukallafka ilaahay ka cabsado xaqullaahi waxa waaye waa فحيث ما كنت فتقه حق إلهي وحواي مالك الصوت جوكتب إلهي إنك كجبق ضوء وحاكلوا حديثك كلمي حق المكلف حق مكلف أولي هيني حديث كوال لو عديو مكلف بحقي سو حواي هدي حمان كد عضف إنه وناك تبدأ حمانت إلهي نسيدس أقدم الدافو وحاكلوا حديثك كلمي حق العباد الضوامنك كالحق يقوليهين وهو ماشي النبي وخالق الناس بخلق حسن الضوامنك كالوحي يقوليهين إن الأخلاق وناكسن أذكر لقنته صادرت مرك حديثكم سد حق أيو كلمي أو حق إلهي أو كلميو أو إلهي إن تكع عبسط مال الله ماشي جوكته حق مكلفك أو ليه هين وكلميو حد يقفك الدم بكرد إلهي إنه الله أفتو ما رتي حسنا لي ماذا إذا وحق مكلفك أوليه إلهي أو دم دافيه تن الضامنك أي كلهين وحق ما ركت معاملة وناكسن الضامنك لقول معاملون يو وخالق الناس بخلق حسن أوليه النبي عليه الصلاة والسلام حديث كان إمام الترمذي أي صار كتاب كيس جامع الترمذي اللي يراهده وهو نقش إنه حديث حسن نسخوين كقارنا وحي إليه حسن صحيح با حسن إيه صحيح وسجود رائنه هي إن شاء الله تعالى درس غير أنت سنكسوكوبنا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رشفنا من الأخلاق أعظم رشفة فأحيت لنا أمجاد عز وسؤدد توالت مزون الخير في كل بقعة